Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warakhiyaarey soo dhawaada mar kale oo waxaan idin rajeynayaa guul iyo gabadhnimo meel walba aad joogtaanba in adeeryaalow geemka maanta sida uu ku bilaabmay si fiican ma ahayn waad ka garan kartaa ciyaarta marka ay Arsenal ay ka maqan yihiin midfieldkeeda dhexda iyo dhanka kaleeta sida aad ogtihiinba seasonkan siduu u bilaabmayba Arsenal dhanka ay ka socotay oo ciyaarteeda ay ka qurux badneyd waxay ahayd dhinaca bidix kasoo bilaabato left back Zinchenko ilaa iyo Gabriel Martinelli ilaa striker Gabriel Jesus isku xireysay midfieldkana qayb ka qaadanaysay oo dhanka Xhaka soo dhexmaraysay ciyaarta maanta waxaa maqnaa Zinchenko injury ayuu ku jiraa injury yar ayuu galay waxaan jeclahay inuu soo kici doono geemka dambe waayo waxaan arkayay markii oo goolkii labaad uu xiray Gabriel Magalhaes qofka ugu horeeyay ciyaaryahanka niyada u dhis u ahaa kusoo booday oo dhanka touchline-ka ka imaaday marka waa arkayay sidoo kale Partey asna injury ayuu galay isna ma aqaan kuma arkin garoonka maanta kuma arkin saacatee laakiin waxaan rajeynayaa in asna uu soo kici doono marka geemka haddaan kusoo noqday qaabka ku bilaabnay ciyaarta lama dhihi karo caawa ciyaar fiican ayay ahayd Arsenal ciyaarihii ay soo ciyaaraysay seasonka markuu bilaabmay ilaa hadda ciyaarta lama oran karo ciyaar fiican ay ahayd saacatee waxyaabo dhowr ah oo laga qaadanaya ayaa jirta oo laga fahmayo marka koowaad waa in Arsenal ay midfield ay heshaa taa waa laazim Elneny iyo Xhaka waa arkayseen Xhaka uu fiicnaa Elneny ma xumeyn defensive-kiisu iska fiicnaa saacatee mar walbo mentality-ga iyo maskaxda teamka inuu ka fikiro ma ahan wax difaac ku jira inuu ka fikiro ma ahan waa inuu ka fikiraa teamka inaad ahaato more creative inaad chances aad sameyn karto banoonta hore aad u wadi karto ma fahantay marka waa arkayseen Xhaka maanta muusan haysanin wax chances oo intuu isaga bax freedomkii uu haystay oo dhanka uu iska aado oo geeskan kasoo qaraabto dhexda galo oo dhinaca strike uu galo waayo Elneny optionkaas ma siinaynin Elneny laftirkiisa isna waxaa dhinaca kale ka taagnaa Ben White ayaa dhanka right back u taagnaa isna attacking aan ahayn oo maanta dhan banoonta gadaal u celcelinayaan marka Arsenal waa inay heshaa Yuri Tielemans dhexda sideedaba Partey haddii laga waayo weji ma lahan waa in ama la helaa ama Yuri Tielemans ama ciyaaryahan kaleeto oo number 8 ah oo markuu maqan yahay Partey aan la fahmin inuu maqan yahay ayaa loo baahan yahay dhanka kaleeto maanta waxaa soo noqday adkaysan Kieran Tierney ciyaaryahanka injury inta uu galay isma lahayn macnaha siduu ahaan jiray iyo caawa siduu u ciyaariyay isma lahan farqi badan baa u dhaxeeyay ciyaaryahanka waa arkayseen qaabka waa xitaa uu ka soo daray oo ciyaaryahanku soo caatoobay in aad u eegteen ma garanayay marka laakiin waxay ahayd maartay ciyaaryahanka mar walba sida isku egtiin Hector Bellerin asoo star ah oo Premier League ninka ugu orodka badan ah oo ugu fiican oo overlap-ka iyo crosses-ka lala yaaban yahay ayuu hal mar injury galay wuuna ku tagay oo ku halaabay marka Kieran Tierney hadda marka ma dhahayo wadadii waa hayaa Kieran Tierney waa ciyaaryahan fiican laakiin caawa aad ayuu u daalnaa caawa teamku ku jiifay marka taasoo mid waa waxa labaad ee Arsenal maartay arinta koowaad aan dhahay Arsenal u baahanta Arsenal waa inay heshaa midfield Partey hadduu ka maqan yahay ama Xhaka labadooduba dhanka kaleeto isna waa dhankaas oo Zinchenko waa uu soo kici doonaa ayaa is leeyahay Kieran Tierney waa macnaha geemka caawa aad ayuu ugu adkaa laakiin waxaan is leeyahay ciyaaraha dambe uu la qabsan doonaayo uu soo hagaagi doonaa ciyaaryahanka sidoo kale midfield wax creativity ah kama jirin Odegaard aad ayuu u fiicnaa goolka uu xirayna khatar u ahaa laakiin waxa uu aragtay asaga ku dhig Odegaard yaana oranayna Saka iyo Martinelli iyo Gabriel Jesus iyo markay gadaal laga keenay ninkan Eddie Nketiah ragaas caawa aad ay uga xanaajiyeen fans waayo mid walbo caawa waxaa la xiri karay Arsenal 5 gool camal way xiri kartay laakiin ciyaaryahan inuu banoonta dhexda soo dhigo ragga kaleeto chance iyo waa wada la'aawa nin walbo keligii inuu gool xiro ayuu rabay marka hadee selfishnimo iyo iimaan darre ay ka muuqato maaragtay xuquuquma hagaagayaan Rashford iyo Martial ayaa wax ku keeni waayeentaa markii aad Janis haysato waad qaadanaysaa way fiican tahay Odegaard hadda waa arkayseen Janis qurux badan oo Saka uu dhigi karay ama Gabriel first half inay had ayaan jeclahay second half bilaawigiisa ma xasuusto marka asagoo baasi karo oo gool Arsenal 1-0 ciyaarta ka dhigi karo ayuu banoonta isku dhajiyay oo banoonta shot uu ka fog yahay ayuu qaatay oo hadana si fiican u darbeynin Saka sidoo kale asna banoon oo 1-on-1 buu gafay oo wax aan la gafaan ahayn
sidoo kale Gabriel Jesus banoon asna qurux badan oo loo soo dhigay pass caadi ah Xhaka baashi u soo dhigayo quruxda badneed asagana inuu kiibaha u baasay inuu shoot qaato waa kala garan waayaba dhanka kale Gabriel asagana kii kale Martinelli asagana he was poor caawa teamka dhan they were poor maaragtay kulligood teamku waxba ka khaldanay dhammaantood waxaanan Saliba aan keen inta kale way khaldanayeen ciyaaryahankan Gabriel Magalhaes isna goolkii gadaal uu ka keenayay maaragtay aad baa u jeclaaday qaabka ay fanska ay ciyaaryahanka ugu dhiirigeliyeen maaragtay markii adoo 1-0 lagu hayo oo banoon hadana banoonta Gabriel qaabka uu control way qurux badnaa saacadee gadaashiisa iska muusi eegano gadaal baa lagaaga imaan doona isma lahayn marka mistakes noo dhaca Premier League maaragtay football aan dhahay waa dhaca Premier League iska badaawo meesha adigu taagan baa lagu xoogayaa banoonta laga qaadanaya marka and he is reacted maaragtay ciyaaryahanka isla markii uu ogaaday inuu khalad uu sameeyay maaragtay goolka Arsenal hadan caawa inay soo badiso asaga sabab waayo gameka maaragtay goolka qaabka uu xiray iyo meesha uu taagnaa iyo maaragtay wax walba aad ay u fiicnaayeen meesha uu taagnaa khatar oo qaabka uu position gareynayay ciyaaryahanka hasaatay ciyaarta caawa qofkii daawanayay Arsenal kuma farxin ciyaarteeda saddexda front three-ga midfield miya dhahdaa labada full back right back iyo left back labadooda wax lagu farxamayeen qaabka ay u ciyaarayeen Saka poor ayuu ahaa Gabriel kaba daran ba Jesus caawa asagana waa ka taalay maaragteen laakiin waa one game dib ma lahan laakiin wax game walba wax laga bartay ayaa jira Arsenal hadda gamekan the main thing Arsenal ay gamekan inay caawa yani qof walba uu ka arkay maaragtay waa midfield-ka Arsenal khadka problem ay ku haysaa sida arkayseen Zinchenko markay haysanay Arsenal inkastoo season-kan oo idil bay u ekeed inay back 3 ay dheelayso saddex gadaal inay dheelayso oo Zinchenko dhaxda uu soo buuxinayay Xhaka asna dhaxda uu ku jiray oo maaragtay oo banoonta forward waa horay uu waday maaragtay xoogaa ceebo badan qarsamay markuu uu Zinchenko uu dheelayay laakiin ciyaarta caawa labadu way soo baxay dhanka full back-na way ka soo baxday midfield way ka soo baxday White oo kolka hore maaragtay asagana teamka xoogaa maaragtay attacking markii la attacking wise maaragtay teamka ku jiifay way soo baxday marka gameka waxyaabahaas oo dhan baa laga akhrisanayaa saacadii overall Arsenal 3 point-geeda way la soo baxday maaragtay 4 game ay dhashay afartina waxay kala soo baxday maaragtay yaa kulli way soo aruusatay dhibciyaheedii maaragtay aan mararka qaarna maaragtay waa just 3 point-ga ma ahan waa ina message aad dirtaa maaragtay ina team adag aad tahay ina dadka tustaa teamka yar isku ciyaar barin hadda qof walba caawa Arsenal ciyaarteeda daawanayay maaragtay wuxuu leeyahay haday ay Fulham ay saa u struggle gareynayaan team weyn wali lama ciyaarin maxaad u maleyn kartaa marka Arsenal waxaan jeclahay inay dhaqso suuq intee gashay maaragtay inay maaragtay ay solve gareeyaan midfield problemkaas iyo walibana ciyaaryahan la tartama in loo keeno Saka waayo waa asaga we cannot rely on him maaragtay kaligiis inaan fiirsan ciyaaryahanka ma ahan waa in ciyaaryahan ka qabto waa in la helaa mararka qaar marka gamekan asagoo in details insha Allah bari ayaa ka hadli doona iyo ciyaaro fara badan oo aad u xiiso leh ayaa maanta jireen marka kuwaas iyo maaragtay gamekan ba ayaan si detail insha Allah uga wada hadli doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.